aad u fara badan ayaa halkan jooga ninkan waa gudoomiyihii jaaliyadda waa isaaq oo military attachka ah ee safaaradda Soomaaliyeed iyo waliba saraakiisha maanta qalin jibinaysa oo ayaga naftirkooda door muhiim ah ka ciyaaraya bal ka waran qalin jibintan maanta bulshada Soomaaliyeed maxaad waxa ugu sheegi kartaa runtii waa wax aad loogu farxo maxaa la yiraahdaa rag ka socda wadanka Soomaaliya oo saraakiil kala duwan oo maxaa la yiraahdaa jagooyinkooda kala duwan meesha isugu imaaday haddana qalin jibinayo oo haddana dib intay wadanka ugu noqdaan wadankii ay rabaan inay wax u qabtaan waa runtii wax aad loogu farxo runtii waxaan ugu mahadcelinaynaa dawladda Turkiga oo fursadan noo siisay in barnaamij noocan ay noo samayso teeda kale waxa kale oo ku boorinaa dhalinyarada hadda joogta ama dhalinyarada kale oo kala duwan oo wadanka shaqooyinka u haya waxaan ka codsan lahaa anama u sheegi lahaa inay sii wadaan wadanka kulli anagu noo baahan yahay qof kale intuu noo imaado wadanka nooma hagaajinaaye inaan anaga aan hagaagsano wax ka wanaagsan male kulli hadalkayga inta soo qabay tiimkaas kale idin muuqda waa qabar oo ayaga naftirkooda maanta qalin jibinaya iyo Soomaaliya raggan oo ay ka mid yihiin saraakiisha bal dareenkiina maanta waxa waaye dareenkeena mid la soo koobi kara maaha kulli waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala halkan maanta ka wadnay halka ziyaada inaan ka wadno waxaan had iyo jeer diyaar u nahay difaaca dalka dadka iyo diinta waxaan leeyahay fariin halkan ugu diraya dhalinyarada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwada aqoon yahanada taasoo aan leeyahay xoogga dalka maanta kaliya uma baahna askari qor qaata ee xabad rida xoogga dalka maanta wuxuu u baahan yahay saraakiil iyo saraakiil xigeen aqoon leh oo ka saacida dhan walba haddii aad maqasho military waa dawlad dhameystiran waa in laga helo xirfad walba mid xabad rida mid xafiis fadhiya mid maaragtay operation sameeya ay nooc laga helo sidaa darteed waxaan fariin gaar u dirayaa dhalinyarada Soomaaliyiinta Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah in ay ku soo biiraan xoogga dalka kuwada aqoonta iyo kuwada kale si dalkeena aanu hagaajisano because nin dalkiisa loo nadiifiyo ama loo hagaajiyo ma jiro ilaa asiga wanaajista maanta waxa aan taaganahay guri ninkiisa quruxsaday laakiin keenna inaan quruxsano ilaahay ha nagu duwaan leeyahay walaalaheena si aan garbaha isu kaashano oo maaragtay gacnaha iska shano faliya tafadal bismillaah dareenkayga lama qiyaasi karo maanta aad u faraxsanahay sidoo kale waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed qaas ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed daarmaya inay ka soo biiraan dhammaan ciidamada qalabka sida qaas ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed anagoo dhiirigelin u sameyn doona iyo boorin iyo soo dhaweyn qaali ah sidoo kale waxaan codsan doonaa kuwa wax bartay inay nagu soo biiraan si annagana aan horumar u sii gaarsiino dal walba dadkiisa dhista dal loo dhiso ma jiro difaaca calanka dadka diinta waa naga dhacaya diyaar waxaan horena u dhimanayna haddana waxaan nafteen inaan horna diyaar u nahay waagaag saraakiil kamid yihiin muddo ayay tababar ku jireen naftoodii ayay u soo adeegeen marxalad kala gedisan ayay halkaan ku sugnaa hadda xeradan ku jirnaa sida aad u jeedaan waa la diyaar gareynayaa oo diyaar garowgii ayay ku jiraan diyaar garow ayay ku jiraan oo goordhow xafladii ayaa bilaabanaysa waxaana la rajeynayaa in gudaha goordhow la galo oo halkaas xaflad weyn ka dhici doonta jeneraal kala gedisan korneelo oo ciidanka Turkiga ayaa goobjoog ah waxaa lagu tilmaamaa dhalinyaradan da'doodu waxay u dhaxaysaa 40 ilaa iyo 20 inta u dhaxaysa waa rag runtii la dhihi karo waqti adag ayay ku soo qaateen wadanka Turkiga ujeedkooda ugu weyn waxa uu yahay in marxaladda wadankooda uu ku sugan yahay Soomaaliya in ay wax ay ka bedelaan waa rag runtii niyad u haya in ay tababarkan adag ay xeeradan ay ku qaataan waxaan la rajaynayaa in ay marka tababarkan uu xirmo waxa loo kala qaybin doonaa gobolada kala gedisan ee Turkiga qaarkood dalka ay ku laaban doonaan ilaa iyo dhowr iyo 70 ay ahaayeen qaar ayaa ka tahriibay oo wadanka ka tahriibay oo badda galay laakiin raggan ilaa haatan tiradooda 50 ku dhawaad 60 gaaraysa ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay mawduucan ama tababarkan waqti badan ay ku bixiyeen runtii rag isla joog isku dhir ah hal gabar ku jirto isaga lagu magacaabo qeybaha kala gedisan ay ku jiraan warag aqoon-yahana ah wax soo bartay tababarkan maanta naftooda geliyay goor xafladda ay bilaabanaysa balse aan idin tuso bal muuqaalkooda iyo qaabka loo diyaar gareynayo değişin. Değiş. Kendi aranızda boş sırası yapalım hadi. Herkes görünsün, herkes. Derdim o. Tamam mı? Fotoğraf çekerken hepiniz görmek istiyoruz. Tamam. Ulan buraya yine burada baksak. Sende bir problem var. Ne oluyor? Arap.
gabadha kaliya ee ku jirta tababarka waa isaga. Boy değişiyor. Boy. Sen boyun kısa. Niye? Boy. Senin boy bana uzun mesela. Aynen. O benim gibi biraz şey acar. Göbek var değil mi lan? Ulan. İyi burada benim göbek yok. Evet. Şimdi şöyle bakıyoruz. Kendi içinizde buradan şöyle baktığım zaman evet herkes çıkıyor mu? Şimdi böyle bir de önden şey yapın, kol uzatın herkes kendi arasında. marka laga hadlayo waddanka Soomaaliya isbedelada uu geli doono waxaa ka mid ah in saraakiil dhalinyaro ah ay mustaqbalka dhow sanadaha dhow ay saraakiisha ama ciidamada ay la wareegi doonaan kuwaasoo wax bartay tiknoolajiyada kala gedisan ee adduunka laga isticmaalo gaar ahaan kuwa sida gaarka ay u isticmaalaan ciidamada militariga waddanka Turkiga ayaa si gaar ah loo baray raggan dad qoryo qaadanaya ayagoo haddana cilmi kala gedisan ayay faa'iideen hadday noqon lahayd tiknoolajiyada casriga ah ee adduunka xilligan ay militarigu ay isticmaalaan madaafiicda goobta qeybaheeda kala gedisan hadday noqon lahayd tacticada ama qaabka dagaalada loo galo xuduudaha farsamooyinka iyo qaababka loo ilaaliyo sida loo daryeelo ciidamada sida shacabka iyo ciidanka sida la isugu xiro iyo waliba sida marka laga hadlayo madaxda iyo waliba waddanka guud ahaan amnigiisa iyo xasiloonidiisa sida loo ilaaliyo loona gargaaro muwaadin walba ama muwaadinka Soomaaliyeed cashiradaas iyo kuwa kale aad u fara badan ayaa waxa ay ka mid yihiin cashirada la barayay magaalada aad ay uga fog tahay Istanbul banaankeed ay xeradan ku taala waana xero tababar oo ciidan ah oo military ah wadamo fara badan ayaa ku sugan sidaan hore idinku sheegayna xafladda goordhow ay bilaabanaysaa gudaha ay ka dhacaysaa haatan diyaar gareyntii ayaa soconaysa waxaa sidoo kale maanta qalin jebinaya Soomaaliya iyo waddanka Qatar ama Qatar ayaa maanta qalin jebintooda ayaa maanta la jooga isbedelku Soomaaliya oo kaliya ma uusan ku dhicin madax inay isbedesho laakiin waxaa socda isbedel kale oo dadku idinku badankooda aysan ogeyn dhanka ciidamada oo kale isbedel ka socda dhanka saraakiisha iyo saraakiil xigeenada mustaqbalka marka waa jiilkan Soomaaliyeed oo la rajaynayo bari ka maalin waddanka inay la wareegaan. Tören esnasında, törende ben tuvalete gideceğim. Ben sigara içeceğim. Ben şunu yapacağım yok. Törene girdik bitti tamam? Tamam. Bunu unutmayalım. Sonra sağdan soldan bakıyorum ne? Bir tuvalete gideyim, bir sigara içeyim. Ben de içeceğim ama mecburen bekliyoruz öyle yok tamam mı? Ben de canım üstüne çıkıp dolaşayım. Tamam. Şimdi buradan giderken bir daha fırsatımız olmaz. Konuşacağım ama sizlerle. Ben sizlerden şu süre içerisinde çok memnunum. İnşallah sizler Somali'ye gittiğiniz zaman ülkeniz için çok daha hayırlı olacak, çok daha iyi hizmetler edeceksiniz. Tamam mı? Çekil. وهجاج isbedel kala gedisan iyo isbedelka waddanka uu ku soconayo ayaa la dhihi karaa meel wanaagsan ayuu marayaa muwaadinka Soomaaliyeed arrimahan oo kale markuu arko jiil Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo ciidankii ka baxaya ama tababar qaadanaya aad ay ugu farxaan laakiin kuwa aan jecleen dalka Soomaaliya isla markaana lacago yar cadow ugu shaqeynaya burburka Soomaaliyana dhanka media raba inay ku burburiyaan niyad jab iyo waxay ku tahay dhabar jab iyo madax xanuun ayay arrimaha noocan oo kale ay ka qaadaan iyadoona aynu la socono wax walba social media lagu soo qoro in la turjumo oo luqadaha kala gedisan luqadda xabashiga Englishka in loo turjumo kadibna loo qeybiyo ama ay daalacdaan rag kala gedisan inay daalacdaan oo saraakiil isugu jira laakiin arintan waxaan u sheegay inay tahay arin sumcad iyo sharaf ku leh ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda jiil Soomaaliyeed dhalinyaro Soomaaliyeed oo Yurub u jira ilaa 20 daqiiqo u jirta inay maanta ay arintan ay ku dhabar adeegayaan
saraakiishu ka mid yahay sarkaalka hogaaminaya ciidankan tababarka maanta dhamaystay cabdinaasir gaashaalo dhexe cabdinaasir bal ka waran dareenkaaga maanta aad baan ugu faraxsanahay waa qaybtii ugu koowaad semesterka ugu koowaad oo qalinjibinta ayuu kadib bacdi waxaan aadaynaa ay tiimkiian aadaynaa aad ugu fiicannahay aaday noo soo dhaweeyeen xataa waxaa jira laba xidigle madaxa laga qalay oo xanuunsan isbitaal ku jiro oo xataa waxay sameeyeen in macallinkii wax barayay in looga tago oo ay la wareegaan ayaga ay xanaaneeyaan intii uu ka soo baxaayo madaxa turaajaga kaga jirto jug hore u gaartay oo dhiig madaxa u fadhiistay ixtiraamkaasi aad noogu sameeyeen marka aad bay noo soo dhaweeyeen waxbarashadeenna aad u fiican tahay soomaaliduna aad ay u jecel yihiin ixtiraam weyn marka kulley waxaan jeclahay abaalkaas inaan gudi doono hadduu ilaahay raalli ka noqdo haddana waxaan gelaynaa qaybtii labaad semesterkii labaad oo traininka iyo tababarka iyo galaas iyo takhasusaadka khaaska ah aan galaynaa inta markana waxaan lahaa maanta aan guureynaa aan guureynaa ilaa caawa 9 saac tagi doonaa xirooyinka kale saraakiil xigeen kabacdina laba bil kabacdi waxaan geli doonaa galaasmankii kabacdi bisha 11aad todobadeeda ayaa waxaan ku noqon doonaa wadankii ku noqonaysaa hadduu ilaahay halka noqdo tababar intaan sii dheer sii qaadanaysaa intaan sii dheer sii qaadanayna gaashaalo cabdinaasir aad baad u mahadsan tahay qeybaha dambe barnaamijka waa is arki doonaa arrimo fara badan waa ka sheekaysan doonaa insha allah marka sii diyaar garoow cabdinaasir waa sidaad maqlayseen gaashaalaha ay gaashaanle oo ciidankan tababarka maanta dhamaysatay ayuu ku jiraa sidaad maqlayseen caawi guureen doonaan oo halkaa marka tababarka loogu xiro qaybtan caawi ka bixi doonaan oo markaasi waxay u gudbi doonaan xerooyin kale oo waaweyn oo magaalooyin kala gedisan loo kala qaybin doonaa dhallinyaradana ujeedaan oo ku dhawaad 60 gaaraysa hadda hal xero ayay ku jiraan laakiin beri markay caawa tababarkan ama xafladda ay soo gabagabowdo waa la kala qaybinayaa qoloba meela la geyn doonaa oo xero gooni ayaa loo diri doonaa kadib halkaas ay ilaa iyo muddo tababar kale ay ku qaadan doonaan fadhi uma yaalo ilaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed oo waxay ka soo tageen dal iyo dad ay ka soo tageen marka waxaa la rajeynayaa in tababarkoodii ay halkaasi ay ka sii ambaqaadaan sidaad maqlayseen wiil sarkaal ayaa ka xanuunsan oo madaxa buro uga soo baxday oo sida la sheegay la qalay isbitaal ku jira isagana waxaan rajeynaynaa isla caawa hadduu rabbi idmo inaan booqano aad baan uga xunnahay in dhalinyarada asxaabtiisii ah oo tababar ay soo wada galeen in uu yacni uu tababarka ama xafladdii qalinjibinta uu la qaadan waayo laakiin dhalinyaro kale walaalihiisa ayaa tababarka u qaadanaya weli waxaan ku jirnaa qaybtii diyaar garowga ayay saraakiishu ay ku jiraan waxaana la rajeynayaa in saacadaha soo socda tababarka ama xafladda gudaha ka dhacaysa holka in loo gudagalo kadibna halkaasi ayaa munaasabad ka dhici doonta munaasabadaasina waxa ay noqon doontaa mid ayaga lagu abaalmarinayo saraakiil xigeen iyo weliba qeybaha kala gedisan ciidamada ayayna isugu jiraan hadday noqon lahayd kuwa inventoryga dagaalka iyo weliba tiknolojiyadda iyo cilmi kala gedisan oo dhanka ciidamada ku saabsan sidaan idiin sheegayna waxaa ku jirta hal gabar ayaa ku jirta oo iyadu u dhabar adeegtay barnaamijkan oo ah in ay ka mid noqoto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tababarka u jooga wadanka Turkiga gaar ahaan magaalada tan Istanbul sidaad la socotaan tababarkan waa ciidanka militariga waxaa jira kuwa cirka waxaa jira kuwa badda waxaa jira kuwa qaybo kala gedisan oo ayaga magaalooyin kala gedisan ay joogaan laakiin qolooyinkan waa kuwa si gaar ah ama saraakiil si gaar ah loo carbiyeeyay oo tiknolojiyadda xilligan horumarsan caalamka ay ku shaqeeyaan ciidamada si gaar ah loo tababaray halkan ayay ku jireen muddo ku siman sanad ay halkan ayay tababar ay ku qaadanayeen sidaad u jeedaan waa xero aad u weyn magaalada ka baxsan qaybo kala gedisan leh wax walbana u dhammaystiran waxayna leedahay qaybo kala gedisan leedahay ayagana ayaa waxa la dhihi karaa saraakiishoodii ayaa barnaamijkan ka shaqeeyay in maanta ay nagu marti qaadaan barnaamijkan qiimaha badan oo runtii la dhihi karo qof Soomaaliyeed ayaa mudan in lagu marti qaado barnaamijkii ugu qiimaha badnaa farxad weyn ayay inoo tahay inaan kala soo qayb galno bulshada Soomaaliyeed ee Soomaalinimada jecel dalkooda jecel dadkooda jecel xumahana ka dhiidhiya in barnaamijyada noocan oo kala uu u noqdo mid
dhabar jab ah inuu u noqdo farxad weyn ayay u tahay dhammaan waddanka Soomaaliyeed wahagaag hay Şimdi sen anlat bunları.